wasaaradda caafimaadka dalka Iiraan ayaa dalbatay in dadku aanay isugu iman masaajidda iyo goobaha cibaadada iyo sidoo kale goobaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan sida basteejooyinka gawaarida si aanay dadkaasi ugu faafin xanuunka coronavirus kaas oo dalkaasi Iiraan gaaray. sidaasi waxaa sheegay madaxa xiriirka dadweynaha ee wasaaradda warfaafinta dalka Iiraan Kaynaas Jahanbuur. waxa uu sheegay inay laga maarmaan tahay in la hakiyo booqashooyinka xafladaha iyo goobaha shineemooyinka. mas'uulkani ayaa sheegay in la badiyey shaybaarrada caabuqyada dalka Iiraan si xanuunkan daawo loogu helo. waddanka Iiraan waxaa gaaray xanuunka coronavirus kaas oo barbilowgiisii hore uu ahaa waddanka Shiinaha. waddamo kaleeto oo ay ka mid tahay Iiraan oo dhaca bariga dhexe ayuu sidoo kale gaaray. arbacadii ayay sheegtay wasaaradda caafimaadka Iiraan in caabuqa coronavirus ay u geeriyoodeen 4 ruux. tirada dadka u dhintay xanuunkan ayaa noqonaysa 19 ruux. guud ahaan dadka Iiraaniyiinta ah ee xanuunkani uu saameeyey ama isbitaallada u jiifa ayaa ah 139 qof. hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa ku baaqday in loo diyaargaroobo ka hortagga faafitaanka caabuqa coronavirus.